أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، hadduu rabbi idmo subxaana wa tacaala, waxaan halkaa ka bilaabaynaa tafsiirka qur'aanka kariimka ah sidii aan horay u sheegnayba, annagoo rabbi ka baryayna subxaana wa tacaala inuu nagu saacido, inuu noogu kaalmeeyo bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa. wax allaala wixii aan ku qaldanno oo sidii loogu talagalay aanan u sheegin, ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga cafiyo. waa nafteennii shaytaan, ilaahayna beri buu ka yahay subxaana wa tacaala. wixii aan ka asiibno oo sidii loogu talagalay aan u waafaqnana, ilaahay baa ku mahadsan, waxaanana ka rajaynaynaa thawaabteeda inuu naga siiyo. ma aha caqligeenna, xeeladeenna, cilmigeenna, balse waa tawfiiq ilaah subxaana wa tacaala. waxaanu ka bilaabi doonaa suuratu faatixa, waxaanu ku xijin doonaa suuratu lbaqara. saas ayaan u sii wadi doonaa oo hoos ayuu u socon doonaa. intaan soo ururin karno inaan soo ururino oo aan soo gaabino ayaan isku dayi doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala. akha walba iyo ukhto walba oo wax kaga intifaaca tafsiirkaana, waxaan ilaahay uga rajaynayaa subxaana wa tacaala inuu miisaankooda xasanaadka ugu siyaadiyo, inuu rabbi uga dhigo midkii saa'iqahee u kaxeeya jannooyinka rabbi subxaana wa tacaala. waxaanana ka dalbanaynaa inuu noo soo duceeyo annaga, waalidiinteenna, mashaayikhdeena iyo in allaala inta muslimiinta ah oo dhanba. tafsiirka sida aad la socotaan walaalayaal, waxa uu ka mid yahay waxyaabaha la barto, waxa ugu qaalisan ee markaa ugu sarreeya. sababtu waxay tahay kutubka ugu sarreeyay ugu qiimaha badan ee adduunka yaala waa kutubka qur'aanka kariimka ah. sidaa darteed ayaa qof allaala qof kasta oo muslim ah waxaa waajib ku ah inuu ku dhaqmo kuna camal falo dastuurka rabbaaniga ah ee xagga rabbi uga yimid. sidaa darteed ayaa qofku uusanna ku camalfali karin ilaa inuu yaqaano macaanida iyo waxyaabaha ku dhex sugan ee ku jira kitaabka qur'aanka. rabbi subxaana wa tacaala mar allaala markuu ku soo dejiye nebi moxamed sala allahu calayh wasalam qur'aanka wuxuu ku yidhi, waan soo dejinay oo dushaada qur'aan iyo dikri baan ku soo dejinnay litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim, inaad dadka u bayaaniso ood u caddayso oo macnaha ku jira aad u sheegto wixii markaa lagu soo dejiyey. xaaladdaa waxay tilmaamaysaa in aad loogu baahan yahay dadku inay tafsiirka qur'aanka ah
aad iyo aad ay u bartaan. kitaabka qur'aanka ah waa mucjizada ugu sarraysa ee alla soo dejiye subxaana wa tacaala. haddii jin iyo insi ay isu tagaan inay la yimaadaan qur'aankanoo kale ahna lama imaan karaan, xataa haddii gobolkood gobolka kala kaalmeeyo, gacanna siiyo. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwii ku dhaqmo inuu naga dhigo. suuratu faatixa. faatixa suuraddeedu waa suurad makiya ah. suuradaha maka ku soo degay inay ka mid tahay ayaana la tilmaamaa. aayaadkeedu waa 7 aayadood. waxaana loo baahan yahay in macaanida ku jira aad iyo aad loo dhuuxo suuratu faatixa. sababta waxay tahay waad u jeeday qur'aanka lagu furfurtay. salaad walba oo la tukanayana waa in lagu akhriyaa. salaad aan faatixa lahayn alla ma aqbalo subxaana wa tacaala. qofka muslimka ah waa inuu ogaado suuratu faatixa inay leedahay fadaa'il aad iyo aad u fara badan oo meesha aan lagu soo koobi karin. waa laysku tufaa oo waa daawo. salaadaa lagu tukadaa. rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay acdam qur'aanka waxa ugu weyn. bacdamay sidaa tahay, suuraddanu waa inay dadka macaanidiisa iyo habka ay u akhrinayaan ay aad iyo aad u saxaan. waayo haddaad qalado salaadaadiibaa jaban. haddaad wax ka hallayso salaadaadiibaa hallowday. xataa mararka gobol ka mid ah ilaahay suuradda ama nebiga sala allahu calayh wasalam ama rabbi wuxuu ku tilmaamaa inay salaad tahay. salaadda anii addoonkayga way noo qaybsan tahay buu yidhi. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi iddiin. allah iska leh. iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin way noo qaybsan tahay. ihdina asiraata almustaqiim waxaa ka hooseeya addoonkaa iska leh. addoonkaygana wixii uu u su'aalay ayaan siiyey buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala. bismi illaahi araxmaani araxiim. waan bilaabayaa suuradda magaca rabbi ayaan ku bilaabaya ilaahay magaciisa allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa, arraxiimi naxariista qaaska ah lahaa. allaha magaciisa ayaan ku bilaabayaa. bismillaahi araxmaani araxiimi. bismi illaah waan bilaabayaa suuraddani oo waxaan ku bilaabayaa bismi illaahi ilaahay magacii allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa, arraxiimi naxariista qaaska ahna u sugnaatee muslim iyo kaafir mutiic macnaha naxariista qaaska ah dadka mu'miniinta u naxariista. alxamdu mahad lilaahi allun bay u sugnaatay. ammaan iyo faalo mahad ideelkeed iyo dhammaanteedba lilaahi allay u sugnaatay. rabbialcaalamiina caalamka iyo uunka iyo koonkan oo dhanna rabbiga u ahaa. rabbialcaalamiin caalamka oo dhan rabbigii khalqee barbaarinayay allaha ayay mahadi u sugnaatay. arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa. allahaasoo raxmaan ahoo raxmadda guud ahaan macnaha muslim iyo kaafir, mutiic iyo caasi, baari iyo faajir intaba allaha u naxariista. allaha ayaa mahad ay u sugnaatay subxaana wa tacaala. arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa. arraxiimi naxariista qaaska ah ee dadka mu'miniinta loogu talagalayna allaha iska leh. allaha ayaa mahadi u sugnaatay. maaliki boqorkii, yowmiiddiini maalinta abaalmarinta. yowmiiddiin waa maalinta aakhiro. maalinta aakhiro boqorkii maamulahayay ee boqorka ahaa allahaasaa mahad iskale. adduunku wuu ku yahay, aakhirana waa boqorkeedii, waa boqorkii maalinta qiyaamo. sidaa darteed ayaa waxa si qaasa loogu tilmaamay maaliki yowmiiddiin. maalinta qiyaamo waxaa caddaanaysaa oo si dhab ah dadku ay u qiri doonaan boqortinimada alle ayadoo la wada taagan yahay. yaa rabbi wuxuu odhanayaa liman ilmulku alyowm. maanta yaa boqor ah. maantayay u sugnaatay maamulka iyo hanashada. maanta yaa maamulka iskale.
wax u jawaaba marka la waayo ilaan dadkoo dhan way cabsanayaan ayuu ilaah leeyahay lilaahi alwaaxid alqahaar alla keligii baa maanta boqor ah anaa jabbaar awa jabbaariintii anaa mutakabbir ahee awa mutakabbiriintii wax hadla ma laha maaliki boqorkii yowmiiddiini maalinta qiyaamaha iyaaka adi uun baan rabbiyow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adi uun baan haddana nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa ilaahayow adigaan ku caabudi adigaanna ku kaalmo weydiisanaynaa ihdinaa ilaahu nagu hanuuni alsiraata almustaqiima jidka mustaqiimka ah ee toosan ilaahu nagu hanuuni siraata aladiina kuwii jidkoodii rabbiyow nagu hanuuni ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda hayri almaqduubi kuwii loo caroodayna aan ahayn calayhim dushooda wala addaalliina kuwii lumayna aan ahayn يا كبر حظي معاهم ويا كثر فيني عطاهم يا كبر حظي معاهم ويا كثر فيني عطاهم يا كبر حظي